Faster Anna waa xildhibaan ka tirsan golaha sare ee baarlamaanka dalka Australia. Xildhibaankan ayaa laga soo doortaa gobolka Queensland isagoo markaasi ka tirsanaa xisbiga One Nation haddase ku biiray xisbiga Curtin Australian Party. xildhibaankan ayaa ku caanbaxay nacaybka iyo cunsuriyadda dadka soo galootiga. xildhibaan Faster Anna mar uu ka hadlayay weerarka argagixisay lagu qaaday labada miskiin ee ku yaala magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand ayaa waxa uu sheegay in weerarkan ay ka mas'uul yihiin dadka soo galootiga isagoo uga dan lahaa dadka muslimiinta. arrintaasi ayaa ka cadhaysiisay dhammaan dadka Australiyaanka waxaana si wada jir u cambaareeyay dowladda iyo xisbiyada mucaaradka. I want to absolutely and completely denounce the statements made by Senator Annie. These comments are appalling and they're ugly. It is disgusting, it's disgraceful, it has no place in the Australian Parliament. Here he is delivering a message which seeks to divide, which seeks to stoke the flames of hatred. Annie oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa weerar ku qaaday wiil 17 jir ah aad uga soo jeeday cunsuriyadiisa kaasi oo madaxa kala beegsaday ukun. taageerayaasha xildhibaanka ayaa gacanta ku dhigay wiilkaasi kuwaas oo ku wareejiyay booliska. saacada kadib booliska ayaa xorriyadiisa dib ugu soo celiyay iyagoo maxkamadda horgeynin. arrinta ku kacay xildhibaan Faster Anna ayaa ka cadhaysiisay dhammaan dadka Australiyaanka taasi oo ku soo aagaysa xaalad xasaasiya. haddaba doorashada baarlamaanka federaalka Australia oo qabsoomi doonta bisha 5 ee soo socota ayaa laga yaabaa inuu kursigiisa ku waayo. Gulay Cabdiwahan, wararka Home Cable TV, magaalada Melbourne, waddanka Australia.